haddaan lacag leeyahay waa siisanaa yes nafteyda haddaan lacag leeyahay 9,000 waa siisanaa waan ku soo socdaa lacag leeydi inaan noqdo laakiin kambaniga aniga maaragtay free easy free wax ma dhaanto point you see waa ku dad waxay free dhaanto waxaan kala ku haayaa hadday caawa nala joogaan rag nala joogaan waa anigii sheegana rag maaragtay kambanigeena feer uu sameeyey kabaha halkaasaa ku ridanaysaa waa kuwaas kabii oo ragga oo haddaay ku tusayay waxyaalaha cajiibka aan businesskan ama Opolis Global fashionkiisa ku dar horta fashionka maaha wax mastiya inaad qaadatid kow healthiga ugu horeeyo waxa bini'aadamku u jecel yahay laakiin fashionka waa faajo kabta daysayna kaaga jabin kabtu ay ka qurux badan gabar iyo wiilba way maaragtay ilaahay uu jecel yahay maaragtay ummadiisa inay iska qurux badnaato qofku ilaahay kuma dhina labisanin ha xaragoonin just waxa lagu ummadda ka nabad gasho afkaaga ha laga nabad helo ummadana wax qurux badan u gudbi marka Opolis Global hadaan nahay anaga waxaan ka tujinaa inaan shacab weynaha Soomaaliyeed aan la wadaagno maaragtay fargalkan ka hor wiilkii hadda daawanaya oo rabo gabar in uu geeyo fargal oo arooskiisa wakaas wow inta badan wiilasheena Soomaaliyeed meerishka ma sameeyaan carabta oo muslimna sameeysa ceeb ma fargalka la isku geliyo laakiin hadiyadu waa uga dhigi kartaa oo waa u qaadi kartaa aniga hadda waxa ahay meerish baa ahay dhag qaadanaya wakaas aada u jeclaa waliba fargalkan u jeedaa marka haddaan maqlayseen ferry iyo Chanel iyo warbaashaas ku jira sida u qurux badan tahay bacdaas la ii soo galiyay waxaan tusaaya waxyaalaha freega aan ku helay oo kambaniga suurta galiyay ilaahay baa wax suurta galiyay waa kuwaas waa ferry soo inama dhihin ferry waxaa xirta dadka rooga cas loo fidiyo annaga qaybaa ka nahay waa muslimaan nahay kambanigayagana qof walba 8 sanadood sariir saarnaa oo yiri maxay aytay ilaahay subxaanahu wa ta'ala gootada ayuu caafimaad ugu siiyay markaan intii aan dhageystay qof kasta halkuu ka cabanay dad aad iyo aad u fara badan oo qariiri fadhigan ku dukan jirnay qariiri maxay tahay qof kasta halkuu ka cabanay aad iyo aad baan ugu bogay gootada dabiiciga ah waxaan isla markaa aniga nafahaan markii anigu ganacsi ma soo kumaan ku tala gelin caafimaad ahaan markaa gootada u doonayay inaan waan maartay oo isticmaalo runtii ganacsiga waan soo galay xilligii aan idin sheegay baan ku soo biiray goojadina waan isticmaalay maxaan ka helay goojadii dabiiciga ahayd goojadii waxa ii soo noqotay hurdadii naturalka ahayd ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu igu galaday jir xanuunkii daalkii faraha badnaa waxyaabihii oo dhan ilaahay subxaanahu wa ta'ala way igaga tageen maxaan sameeyay markaan kabarigii gala alabadeedana iyo tiban goojadii isticmaalay daaban ogaaday wadna xanuunkii inanteeda lagu sheegayay inay runtii way u fiicay wadna xanuunka aad ugu wanaagsan tahay way isticmaalashay inanteedii waa siiyay wiig bay igu dhici jirtay oo mar walba ay koome ii gali jirtay ilaahay subxaanahu wa ta'ala wadna xanuunkii intuu ku dadkeeyay caafimaadkeedu maanta waa tamaam ilaahay subxaanahu wa ta'ala caafimaad u siiyay aniga familygayga oo dhan aabahay oo wadankii jooga uu isticmaalay adimada ayaa xanuuni jiray maxay ay wada garan kartaa qof weyn oo iska xanuunsanaya abaadimada mari baan idhi jirka kale maxay tahay sida kale oo isticmaal aad iyo aad isaguna ugu fiicnaaday mar walbana waa ma sha Allah tabarakallah uu isticmaalaa aniga familygayga oo dhan ba feedback anigoo kaliya ba feedback aan ka hayaa aan la soo koobi karin goojada dabiiciga maxaa si haddaba dadka kale aan ugu baaqaynaa dad fara badan oo kale oo isticmaalay inaan saaxiib nahay oo joogto wadankii hindiya xitaa tagtay baniga bishii 9aad 2020kii ruuxaantii maxaydan waa laga soo hadlay saliidii goojadii maasha Allah dabiiciga ahayd waxay soo tartay badaan wax wanaagsan horta soo tartay maasha Allah laakiin maanta maxaan idin wadaa ku soo dhawaada martida sharafta leh dhammaan inta dhageysan doonta dhammaan iyo inta loo sii tagin doonaba
maanta waxaan idin hayaa maasha allah waxaan idin hayaa waa Colgate dust tan kale baan idhahnaa anaguna Norway dadka jooga kolley ku jiraan hadday doonaan marka taasi maxay tartaa wada wajib maasha allah haddaad xataa marsato dawooyinka kale ee maxaydeen kimikada waa aday ku taala taasi daakuma odhan karo waad marsan kartaa laakiin kan waa caawiye aniga halkaasi maalmo dhaweyd finabaa iga soo baxay inankii way ugu dulmadoobaadeen cadaankii faraha badnaaba malaha laga caawiyaan malahaysa waxaan ku iri kaas wuu iga biyey 3 habeen baan si fiican ugu seexday wuu iga biyey adigu haddaad waxaas xitaa istiraado waxaasi waxba kuma tarayo laga yaabaa inuu waxba kuu tari waayo laakiin markaad waxaan aad ugu tala gashay inaad marsatay soo qabsatay waa inaad maskaxdaada gelisaa inaad waxaasi wax kuu tarayo marka taasina waa taa anka qayleer baa ka baxastay raali ahaada gabdhii baan kasoo dhex baxay kana waa kii maalinta aad marsanaysaa taraya wasaxda dhan buu kaa celinayaa nadiif buu kaa dhigayaa wejigaa wuu ku dhalaalinayaa qurux baan ku iri waxaad u bixisay roodi waa daryeelka iyo caafimaadka iyo quruxda isqurxinta marka kariimkaasina aad iyo aad u wanaagsan yahay maasha allah tabaarakallah malaha waa idinku badiyaan malaynayaa kolaa la istaba taagan yahay kaasina waa kii maxay hadeen fooldaqa wejigaad ku maraysaa oo maskigii wejiga gacantaad ku yar shumanaysaa waxaan ku iri waa la kala qarsadaa gurigay kaas sababtoo ah dee qiimo weyn buu anaga noogu fadhiyaa waayo wax wanaagsan baanu ka aragnay aad iyo aad buu wanaagsan yahay aad iyo aad buu wejigaagu u qurxinayaa wuu u nadiifinayaa waxaan ku iri dee muraayadaba iska qaadi maysid baan ku iri mar kasta ood isla hesho labadaas isticmaalay imiisa macnaha usoo koreen ama usoo baxeen oo kale halkan waxaad ku aragtaan gabadh skinkeedii markii hore madow baa xaga ka saarnaa maasha allah soo waxeenayo gabadhan walaashan ifraax way joogtayba markii ay baa cunay oo maasha allah waxaad arkaysa in qaliin lagu sameeyey sanka laga tolay after maxaa 60 days maxaad ku aragtaan in maasha allah ilaahay ka kaxeeyey gacantan kale coodhada aragtaan gacmaheedii maasha allah xaasiyada ku kacday caadiska ku fara badan xaasiyada haysta xaasiyadii markay isticmaashay before afterkii walaashan ifraax baan ku aragtaan inay xayeysiida maasha allah qofkii weydka cuslaa ama weydkiisu aadka u cuslaa oo markuu isticmaalay isna weydkii ka dhimado aragtaan qofkii cambarqadka cabay ama xanuun baa lahaa magaca ma aqaano timaha dhinac ka yaacay ama dhinaca holmayaan waxaas dhan waa aragteen maasha allah walaalihii ka sharaxay okay waxaynu ugu xigsiin doonaa maxay tahay sidee haddaba ay dhaqaale uga